xisbiga shaqaalaha ee UK ayaa ku guuleystay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday taasoo uu helay codadka ugu badan ee baarlamaanka aqalka hoose oo ka kooban 650 kursi. Sir Keir Starmer ayaa noqonaya ra'iisul wasaaraha cusub ee UK kadib markii uu xisbiga shaqaalaha ku hogaamiyay guul weyn. Ninkan ayaa bedelay siyaasigii garabka bidix ee Jeremy oo ahaa hogaamiyaha xisbiga Labourka 4 sano ka hor, wuxuuna ka shaqeeyay inuu xisbiga ku soo celiyo garabka dhexe si uu uga dhigo mid la dooran karo. Xisbiga Labourku waxa uu xukunka ka maqnaa 14 sano, hadda waxa uu helay 370 kursi, taasoo ka dhigaysa inuu helay aqlabiyadda baarlamaanka UK. Sir Keir Starmer waxa uu ku dhashay magaalada London sanadkii 1962. wuxuu ahaa mid ka mid ah 4 caruur qoyska Rodney Starmer. aabihii wuxuu ahaa qalab sameeye warshad, hooyadiisna waxay ahayd kalkaaliso. waxa uu ku koray koonfur bari England. qoyskiisu waxay ahaayeen weligood taageerayaasha xisbiga shaqaalaha. Starmer waxa uu ku biiray siyaasadda xisbiga shaqaalaha isagoo da'diisu ahayd 16 sano, wuxuuna ku biiray laanta dhalinyarada ee xisbiga in muddo ah. waxa uu soo ahaa tifaftiraha majalada garabka bidix ee xag jirka ee la yiraahdo Socialist Alternatives. Sir Keir waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee qoyskiisa ee taga jaamacad, wuxuuna sharciga ka bartay Leeds iyo Oxford. kadibna waxa uu ku shaqeeyay qareen ku takhasusay xuquuqda aadanaha. muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ka shaqeynayay in ciqaabta dilka laga saaro wadamo ku yaala Caribbean-ka iyo Afrika. 2008 Starmer waxa laga dhigay agaasimaha xeer ilaalinta guud iyo madaxa adeega xeer ilaalinta, taasoo la macno ahayd inuu ahaa dacwad oogaha ugu sarreeyay England iyo Wales. wuxuuna shaqadaas hayay tan iyo 2013. sanadkii 2014 wuxuu helay abaalmarinta Sir oo ay bixiso boqortooyada Ingiriiska, taasoo lagu mutaysto waxqabadka qofka iyo u adeegida dalkiisa. sanadkii 2015 Starmer waxa uu galay baarlamaanka isagoo noqday xildhibaan laga soo doorto London. xisbigiisa Labourku wuxuu xilligaas ahaa mucaarad uu hogaaminayay siyaasiga garabka bidix ee Jeremy, waxaana uu Sir Keir ka dhigay xil sugaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. kadib markii ay UK u codaysay inay ka baxdo midowga Yurub, Starmer waxa laga dhigay xogayaha Brexit isagoo horseeday afti labaad. Starmer wuxuu fursad u helay inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha kadib doorashadii guud ee 2019, taasoo masiibo ku ahayd xisbiga, noqotayna guuldaradii ugu xumayd ee tan iyo sanadkii 1935. arrintaas oo ku khasabtay Jeremy inuu iscasilo. ra'iisul wasaaraha xilligan ee Ingiriiska markii uu qabtay hoggaanka xisbiga Labourka wuxuu ku ololeeyay qaramaynta shirkadaha tamarta iyo biyaha iyo in ardayda jaamacadaha wax lagu baro lacag la'aan. ra'iisul wasaare Starmer wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyay ku dadaalayay inuu mideeyo xisbiga. Sir Keir Starmer wuxuu xisbigiisa Labourka u jiheeyay dhanka dhexe si uu uga dhigo mid la dooran karo, wuxuuna ka tagay siyaasado badan oo qaali ahaa isagoo tixraacaya xaaladda liidata ee dhaqaalaha guud ee UK. wuxuuna meesha ka saaray soo jeedintiisii hore ahayd in la qarameeyo shirkadaha tamarta iyo biyaha. wuxuu ballan qaaday in ku dhowaad dhammaan adeegyada tareenada rakaabka uu dib ugu soo celin doono lahaanshaha dadweynaha 5 sano gudahood, iyagoo hoos imanaya shirkad cusub oo lagu magacaabo Great British Railways. ra'iisul wasaare Starmer waxa uu ka tanaasulay ballanqaadkiisii hore ee ahaa inuu meesha ka saarayo kharashka waxbarashada ardayda kulliyadaha, isagoo sheegay in dawladdu aanay awoodi doonin inay bixiso. xisbiga shaqaaluhu waxay dib u dhigeen ballanqaad ay sameeyeen 2021 si ay ugu kharash gareeyaan 28 bilyan oo euro ilaa iyo 35 bilyan oo euro sanadkii mashaariicda tamarta cagaaran, laakiin waxay ku adkaysan doonaan ballanqaadka ay ka mid yihiin dhismayaasha beeraha dabaysha iyo horumarinta warshadaha baytariga ee baabuurta korontada. dhowaan ra'iisul wasaare Starmer wuxuu ballan qaaday inuu ku maalgashan doono 8 bilyan tamarta cagaaran iyadoo loo marayo shirkad cusub oo lagu magacaabo GB Energy. waxa kale uu ballan qaaday inuu gebi ahaanba shidaalka ka saari doono korontada UK marka la gaaro 2030. khubaro badan ayaa aaminsan intaas aan la samayn karin. kadib weerarkii Xamaas ee Israa'iil bishii Oktoobar 2023, Starmer wuxuu taageeray howlgalladii Israa'iil ay ka wada Gaza
iyo xaqa ay u leedahay inay isdifaacdo. tani waxay ka caraysiisay codbixiyaal badan oo taageersan Falastiin, wuxuuna la kulmay kacdoon ka yimid tobaneeyo xildhibaan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha oo ku baaqay xabad joojin degdega. Mr. Starmer waxa kale uu taageeray duqeynta UK ay ku hayso Xuutiyiinta Yemen, taas oo uu sheegay inay jawaab u tahay weerarada kooxdan ay ku qaaday maraakiibta lagu xiriirinaya Israa'iil. Sir Keir Starmer oo hadda noqonaya ra'iisul wasaaraha UK ayaa marar badan oo hore waxa uu sheegay inuu necab yahay guuldarrada. Ra'iisul wasaare Starmer waxa uu guursaday xaaskiisa Victoria Alexander sanadkii 2007. xaaskiisa ayaa u shaqaysa hadda hay'adda la yiraahdo NHS, waana qoys 2 carruur leh.